بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر. muddo laga joogo daqiiqado ka hor ayaan inaan saaxiib nahay ama ragga ku taxan duruusta aan ka bixiyo facebooka ayaa wuxuu iisoo diray su-aashaas waxay ku saabsaneed dowladdii federaalka ahayd, dowladeena soomaaliya iyo maamuladii gobolada markay kulmeen. wuxuu iisoo diray video laga soo qaaday, videogaasoo markaasi nin xiriirinaya barnaamijka madaxdii meesha fadhiisay ku wada dhahayo istaaga daqiiqado u istaaga, dadkii qarxyada ku dhintay ha loo aamuso. marka wuxuu isoo weydiiyey ninkii walaalka ahaa dhaqankan cusub oo weligiina aanan arag ma diintaa qabta, shacab muslina soo ma nihin. marka arintaasi markaan arkay, waxaan arkay, aan soo xusuustay xadiiska nabiga caleyh isalaatu wasalaam oo uu dhahaya rasuulka caleyh salaam, addiinu nasiixa, diintu waa nasiixo, oo qofka ka faa'iideysanayo waxa saxa ah, oo qofka loo sheegayo waxa saxa ah oo shareecada waafaqsan, oo diinta islaamka waafaqsan, iyo waxa ku qaldan islaamka. marka waxaan rabaa halkan inuu soo koobo, marka dadka muslimiinta ay dhintaan arwaaxdooda sida loola tacaamulo. axkaam ayay leedahay, waa qeyb ka mid a diinta islaamka. tacaazi ayaa la yihahda ama tacziya. dadka muslimiinta, weli shacabka muslimka ee soomaaliya jooga ama meel walba jooga, marka ay timaado arwaaxda dadkii dhintay, ilaah u naxariisto marka hore. mar kale intaasoo jeeraan ku celcelino, waana ku celcelin doonaa dadkaas inaan u duceyno. waxaa la dhahayana marka loo duceynayo waa sheegeynaa, waana soo sheegnay. axkaamta islaamkani way ku caddahay. marka hore waxaan ka horumarinayaa in dhaqan kale la qaato oo diin khuseeya, islaamka muxuu ka qabaa. arintan waa arin diin waaye. markay dad dhintaan qaabka loogu duceynayo, maadaama arin diin ay tahay, waxaa laga qaadanayaa kitaabka muxuu ka yiri oo qur-aanka ah, iyo sunnada nabiga caleyh salaam maxay ka tiri. intaasaa la fiirinayaa. nabiga caleyh salaam xadiis saxiixa wuxuu ku yiri, man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad. qofkii sameeya cibaado, camalka waxaa loola jeeda halkan cibaado, laysa calayhi amruna, oo diinteenna aan wax shaqaa aan ku lahayn, oo diinteena aysan tilmaamin, isagaa lagu celinaya. waa waxa bidcada la yiraahdo waayo. qofka waa lagu celinayaa. xadiis dhahayana wuu jiraa, kulu bidca dalaala wa kulu dalaalatin fi nnaar, acaadana allahu minha. bidco kasto waa baadi laga leexday wadadii islaamka. bidcan waxa la qofku wuxuu iska samaysto, uu iska fikiro, oo cibaado ah, cibaadana aan ahayn asal ahaan, oo cibaado uu ka dhigto, asalna ku lahayn kitaabka iyo sunnada nabiga caleyh isalaatu wasalaam. waxaa laga yaabaa dadka qaarkooda inay dhahaan nebiga soo tii meyd uu istaagay oo lasoo agmarinayo. meydkaasi wuxuu ahaa rasuulka alay slam qiso gooniya lahayd. meyd yahuudi uu ahaa, oo markii lasoo agmariyey nabiga calay salaam wuu istaagay. markaasa waxaa la yihi waa yahuud, markaasuu yihi waa insaan. marka istaagaasi waxaa lagu fasiray meydka, marka qofka marka haddii meyd lagu soo agmariyo, ixtiraamka insaankaasaad u istaagaysaa. ma aha meydka in loo duceynayo kow. ta labaadna
nabiga calay slam kama soo aroorin inta taariikhdiisa asxaabta dhimatay in uu yiri maaragtay ha loo istaago daqiiqado indhaha laisku qabto ama ha la aamuso. waxay ka timid dhaqamada kale oo diinta islaamka aan ahayn, oo dhaqan islaam shaqo kuma laha. dhaqanka islaamka kow horta xadiiskaas wuxuu diidayaa in lasoo dariyo waxa diinta islaamka aan shaqo ku lahayn oo dhaqan laga dhigo. marka waa dhaqan cusub oo dowladdii la rabay inay horseedo maaragtay tusaale noqoto oo ay samaysay tusaale khaldan. hadda waxaa imaanayso markii qof uu dhinto dadka meel walba sida hadda maraykanka laga sameeyo kale, waa dhaqanka maraykanka qeyb ka mid ah waay in la istaago oo qofka dhintay oo la dhaho indhaha laisku qabto oo hoos la fiiriyo oo daqiiqad 2 daqiiqo 3 daqiiqo loo istaago. laakiin nabiga calay slam arrintan uu ka hadlay, meel rasuulku ku sheegay ma lahan meydkan loo istaago. marka tacsiyada axkaamteedan soo koobaynaa. xadiiskan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man tashabaha biqowmin fahuwa minhum. qofkii isu ekeysiya dad kula dhaqan ahayn iyaguu la mid noqonaya. macnaha ma-aalkooda masiirkooda meeshay qoladaasi ku dambaysa ku dambeynaya. idan xadiiskana wuu jiraa in qofka lala soo kulminayo qofka uu raacraacayo. marka anaga muslimiinaa nahay, diin dhammaystiran uu ilaahay subxaana wa tacala una siiyey oo jawaanib alxayaa oo dhan lagu soo koobay. 2 qeyb ay u qaybantahay marka diinta. qeyb cibaado ah, inkastoo wax walba qofka uu sameeyo ilaahay ku raalgeliyey aslan ba cibaado ay noqonayso, laakiin kuwa la xadiday qaabka loo sameynayo. salaada ka mid ah, waxaa ka mid ah soonka, waxaa ka mid ah qofka markuu dhinto qaabka loo aasayo sida tacsiyada loo sameynayo ayaa ka mid ah. intaasoo dhan waa la xadiday. nabiga calay slam waxaa laga soo wariyey xadiis bukhaari uu wariyey waxa la dhahayo iyo waxa la sameynayo qofka marka uu dhinto. hadda dad baa naga dhintay, ilaa wada naxariisto, gacan ka gardaran ayaa dishay. ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan ha waafajiyo qaabka ee u waajihi lahayd cid kasto, al-shabaab ha ahaato, cadowga faraha badan oo soomaaliya ee leedahay oo gaalo iyo muslimiin u tashtay ay isugu jiraan. ilaahay ummaddan muslimka ee soomaalida ee masaakiinta ah oo cid u maqan aanan u jirin, ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan waxaan ilaahay u weydiinayaa fursaddan waktigan anaga salaada subax kadib ay noo tahay, ilaahay inuu towfiiqda na waafajiyo, una waafajiyo qaabka aan u waajihi lahayn dhibkana haysta oo dhib fara badan ah, oo qabyaalada, tafaraaruqa, dowlado badan aan samaysanay oo iska soo wada horjeeda, iyo cadowgii oo loo wada shaqaynayo ee noocu doona ha ahaado. intaasoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala hana siiyo caqli lagu fekero oona samata bixiya oo keena inaan kitaabka iyo sunnada nebiga calay salaam aan wada raacno. lamana wada raaci kara hadduu qofka uusan aqoon u lahayn. hadda arrintii dhacday ani waxaan u arkaa arrin dowladda jahli ka ahayd, ama ruux ay xiriirinta u dhiibeen jaahil ka ahaa waxa uu sameynayn uusan ogeyn. waxaa fiicnaad lahayd ruuxaas wax xiriirinaya inuu culammada weydiyo uu dhaho, dadkan dhintay ayaan rabnaa inaan u ducayna, qaabkeen ugu ducaynaa. marka qof markuu dhinto maxaa la yidhaahdaa tacsiyada? marka hore culammada waxay dhaheen xukunka tacsiyada ma lahan wakti. waxaana 3 shay aan ka hadlayaa. waktiga tacsiyada, waxa la dhahayo, iyo muddada qofka tacsiyada uu wadi karo. ilan 14 Oktoobar hadda waxaan ku jirnaa 2 usbuuc kadib, weli tacsiyada ma la wadi karaa? okay, marka hore tacsiyada wakti ma lahan. culummada saasay yiraahdeen. qofka markuu ogaado xitaa sanadka kasoo wareegato qof dhimashadiisa, markaasi tacsiya wuu diri karaa. tacsiyada macnaheedu waa duco waay, qofka in loo duceeyo. qaabka waa sheegaynaa. marka wakti xadidan ma laha. xitaa 3 maalmood oo dadka qaarkood ama culamo qaarkood ay ka hadlaan
waa la duray sababtoo ah meel ay ku caddahay 3 maalmood in la sameeyo ma jirto. okay, marka maxaa la dhahayaa, maxaa la sameynayaa? tacsiyada waxaa la dhahayaa ducadan oo qof walbo aan rajeynayo inuu maanta xifdiyo. qofka markii oo meesha istaagan la sheegay hadda oo bidcada la sameeyey ma sameynayo. qofku wuxuu ducadan u aqrinaya, wuxuu leeyahay inna lillahi ma horta aayad waxaa jirto ilaahi subxaana watacaala uu dhahayo, aayaddaasi xadiiskan isku xiraya oo saxiixa ah. aayad waxay leedahay wabashir الصاabiriin aladiina ida asaabathum musiiba qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun. macnaheed waxaa loola jeedaa dadka oo sabrayo, dhibkii dhacay ku sabrayo u bishaaree. ilahi subxana saasuu leeyahay. marka dadkaasi waxaa laga hadlay sifaadka dadka mu'miniinta ee u dhaqmayaan markii musiibo ay ku timaado. wabashir الصاabiriin aladiina ida asaabathum musiiba, kuwa markii musiibo ay taabato, ehelka loola jeedaa, asxaabta loola jeedaa, ummadna musiibana taabatay. dad badan ayaa naga dhintay qaraxii hore iyo qaraxii naasa hablood 2. ummad muslimiin ah oo walaalo ah oo madax iyo cid kala duwan iyo shacab ayaa ku dhintay. marka musiibadaas maxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. taas waa aayad qur'aan. hadallada axaadiista ay sugtay waxaa ka mid ah xadiis dhahay qofku wuxuu dhahayaa inna lillahi intaanan hilmaamin inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. macnaheedu waxa waaye inna lillahi annaga oo dhan ilaahi baana leh, wa inna ilayhi raajicuun annagoo dhan waxaan u laabanaynaa ilaahi subxaana wa tacaala. xadiiska oo soo socda oo rasuulku uu dhihi jiray oo sunno ah in la dhaho, aayaddaasay fasiraysaa. xadiisku wuxuu leeyahay inna lillahi ma akhad walahu ma acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama. waa intaas keliya. inna lillahi ma akhad, ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu qaatay. dadkan dhintay ruuxdooda ilaaha ceshaday, ilaaha qaatay. walahu ma acطaa, isagaa leh wuxuu baxshay. ilaahay wuxuuna siiyey caruur iyo ummadan, ilahay isagaa lahaa markii hore. markaasaa qofka wuxuu leeyahay wakullu shayin, wax walba oo jira oo ilaahay subxaana wa tacaala abuuray oo makhluuqaad ah oo bini aadamku ka mid yahay, cindahu ilaahay xaggiisa waxaa kaga qoran biajalin musama, waqti go-an oo cayiman oo ilaahay keliya uu ogyahay. waqtigaas uu soo gaaro ya ilaah u naxariisto. marka anaga marka waxaan leenahay marka ducadaasaan akhrinayna kala waxaa banaan qofka waa jirtaa ducooyin kale culummada ay dhahaan oo qofka uu leeyahay axsan allahu maaragtay cadama allahu ajraka wa gafara allahu limayitik. culummada way akhriyaan ducooyinka noocaas oo kale ah, way banaan tahay. culummada waaweyn waxay yiraahdeen duco oo khaas ah oo tii hadda lasoo sheegay ma jirto, oo wax walba qofka uu ku duceeyo oo qofka loo weydiinayo naxariis ilaahay iyo dembi dhaaf way banaan tahay. marka wax joojinaya ma laha. laakiin waxaa khalad ah in dadka muslimiinta ah ay soo dariyaan dhaqan cusub taasoo keeni karto ilaahay subxaana wa tacala inuusan noo naxariisan. waxaan kusoo gabagabeynayaa haddaan rabno inaan ka baxno dhibka aan ku jirno, ilaah qur-aanka noogu sheegay qaabka loogu baxayo. waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaytu laa yaxtasib. aayadaasaa waxaa soo koobayso azmada iyo crisiska iyo dhibka soomaali weyn haysta oo dhan wax lagaga bixi karo. waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja. qofka ilaahay ka cabsada, ilaahay wuxuu u furayaa makhraj uu kaga baxo dhibka uu ku jiro. dhibka dagaalka iyo colaada wuxuu kaga baxayaa nabad. dhibka dib u dhaca wuxuu kaga baxayaa horumar. dhibka tafaraaruqa iyo dowladaha badan aan samaysanayno oo aan isku riixriixayno wuxuu kaga baxayaa midnimo. dhibka xasadka iyo maaragtay iyo isriixriixa waxaa lagaga baxayaa walaalnimo oo diinta loo noqonayo. intaas o dhan waxay imaanaysaa qof marka ilaahay laga wada cabsado, qof kastoo naga mid ah
إنه إلهي كعبصده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. markaas kadib meel aanan ka filayn aan waxaan ka helaynaa makhrajka meel aanan ka filayn laakiin shuruudana lagu xiray. culimada taqwada waxay kusoo koobeen amarka ilaahay in la qaato oo ku qoran kitaabka iyo sunnada iyo wuxuu ilaahay xarimay in la joojiyo. waa intaas kaliya waa intaas. marka waxaa la rabaa madaxweynaha inuu kusoo celceliyo intaas, prime ministerka inuu intaas kusoo celceliyo, culumada oo gudaha iyo dibadda joogta intaas inay kusoo celceliyaan, qof kasta oo Soomaali intaas inuu kusoo celceliyo oo ah in wuxuu ilaahay amray oo kitaabka quraanka uu ku amray iyo sunnada nabiga in la wada sameeyo iyo wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xarimay in la wada joojiyo. ilaahay wuxuu xarimay dhiigga walaalka in la daro, ilaahay wuxuu xarimay sharafta walaalka in lagu xadgudbo, ilaahay wuxuu xarimay in lagu xadgudbo qofka maalkiisa, ilaahay wuxuu xarimay in lagu xadgudbo qofka caqligiisa. inta xadgudub ilaahay uu xarimay oo dhan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinteena kitaabka iyo sunnada ku xarimay oo dhan in la wada joojiyo. haddii labadaas lala yimaado oo ah al-amru bilmacruuf wanahyi can lmunkar, taqwada halkaasi ku dhan tahay. ummadoo dhan haddii isla qaadato waxaan noqonayna marka kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can lmunkar. waxaad tihiin, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrij linnaas, ummadaha ilaahay uu soo diray ummadda ugu khayr badan. maxaad ku noqoteen? ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can lmunkar. waxa wanaagsan ayaad ka shaqaynaysaan, waxa munkarkana waad joojinaysaan. marka arintii dhacday shalay oo maamulada gobolada iyo dowladda ay sameeyeen waa arin kasoo horjeeda aayaadkii iyo axaadiistii hadda aan akhriyey, asalna ku lahayn diinta islaamka. waxaan haddaan ku noqono diinteena islaamka, haddaan ku noqono kitaabkii qur-aanka, haddaan ku noqono sunnadii, raxmadda ilaaha imaanayso. cabsidii ilaahay subxaana wa tacala haddaan badino, ilaahay wuxuu noo furayaa makhraj oo sabab u noqonayso colaadan inay istaagto, cadowga ilaahay inuu naga qabto oo faraha badan, in ilaahay subxaana wa tacaala quluubtu ilaahay isku keeno midnimo ay timaado, inaan hal dowlad oo keliya inaan noqono, cadow intii cadow nagu ah oo dhan inaan wada aragno oo hal dhinac kaga soo jeesano, anagoo gacmaha ishaysanno oo walaalo ah oo hal ah oo aan ku dhawaaqayno wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.